dowladda Mareykanka ayaa ugu hanjabtay madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay saari doonto cunaqabateyn in laga xanibi doono dalku galka Mareykanka haddii aysan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka laaban muddo kororsiga oo aqalka hoose ee golaha shacabka u sameeyay. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay dib ugu laabtaan wada hadallada si heshiis buuxa looga gaaro khilaafka weli ka taagan doorashada Soomaaliya. go-aanka lagu kordhiyay muddada dowladda federaalka ee weeqayso sii socoshada nabadda iyo amniga dalka. waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay dib ugu laabtaan wada hadallada isla markaana isla meel dhigaan wadadii hore loogu mari lahaa ama hore loogu socon lahaa. sidoo kale waxa uu sheegay inay isticmaali doonaan aalad walba ay uga hortagayaan muddo kororsiga ay ku jiraan cunaqabateyn, xadidaadda safaro si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. dhinaca kale, dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inay dib ugu soo laabtaan miiska wada hadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. wasiirka arrimaha Afrika ee UK ayaa dhankiisa waxa uu baaqay hogaamiyaasha Soomaaliya inay si degdeg ah u laabtaan wada hadallada si loo helo xal wax ku ool ah, maadaama uusan jirin is-afgarad horseedaya doorasho loo wada leeyahay oo lagu kalsoonaan karo in la qabto iyadoo aan dib loo dhigin xiriirka bulshada caalamka iyo hogaanka Soomaalida ayaa isbedelaya. UK waxay la shaqeyn doontaa saaxiibadeeda caalamiga ah qaab midaysan oo dib loogu qiimeynayo xiriirkeena iyo nooca wanaagga aan siino Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka arrimaha Afrika ee dowladda UK. xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan waxa ay maraysaa meel xasaasi ah, waxaana khilaafka doorashada Soomaaliya uu yeeshay waji kale kadib markii golaha shacabka ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ay kasoo horjeesteen xubnaha mucaaradka.